degdeg madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka farxiyay madaxweyne farmaajo iyo shacabka u riyaaqay tallaabo weyn. Kenya waa la bahdilay. taladii madaxweyne farmaajo ayaa dhaqan gashay oo horur Kenyaantana wuu oynayaa. xaalkiisu ma wacna. xasankii uu lahaa wuu ku bahdilan yahay ayaa ku gacan sayray. madaxweyne farmaajo taladii uu siiyay xasan sheekh ayaa guushan shacbiga dhaliday. shacabka Soomaaliyeedna dabaaldegyo waaweyn ay ka wadaan baraha bulshada Kenyana waa lagu wiirsanayaa. kadib markii madaxweyne xasan uu diiday inuu ka qayb galo kulan ka dhacay Nairobi isagoo ku sugan Ankara. waa galwareedii warbixin degdega Kenya oo carrootay iyo xasan sheekh maxamuud oo dhaqan galiyay mid ka mid ah talooyinkii madaxweyne farmaajo ayaa idinku haynaa warbixintan maanta oo Arbaca shaargaray oo ku faafiya dunida meel walba ku toor muuqaalka page-keena galwareed soo filo garay sidoo kale YouTube-keena galwareed TV subscribe soo saar waa hagaagan ku bilaabo. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa si xun u bahdilay dowladda Kenya kadib markii uu ku gacan sayray inuu ka qayb galo kulan ka dhacay lahaa magaalada Nairobi oo goboleedka igadoo lahaa. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka doortay inuu Nairobi tago inuu joogo Ankara oo kulan la qaato mas'uuliyiinta ugu sarreeya waddanka Turkiga. arrintaasi waxay muujiday qarannimo iyadoo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay si toos ugu gacan sayrtay amar uu Uhuru Kenyatta bixiyay isagoo isku haleynayay xasan sheekh maxamuud oo islahaa wuu ku dhul yaala. laakiin xasan sheekh ayaa qaatay tallaabo uu kula taliyay madaxweyne farmaajo oo ahayd in Kenya aan markaasi Soomaaliya aanay ka helin fursad ay ku bahdili karto. tani markii uu madaxweynaha Kenya qaaday tallaabo Soomaaliya qaranjab ku ahayd kadib markii uu kulan ay diblomaasiyiinta caalamku lahaayeen keenay diblomaasi ka socday Somaliland ayuu madaxweyne farmaajo kula taliyay xasan sheekh maxamuud in loo baahan in Soomaaliya ay aarsato isla markaana ay Kenya ku bahdisho fagaaro caalami ah. arrintaasi oo xasan sheekh maxamuud uu qaaday tallaabadii ugu horeysay ee bahdilkii Kenya loo ballamiyay. shacabka Soomaalida ayaa baraha bulshada ka bilaabay hashtagyo ay ku bahdilayeen Kenya kuna ammaanayeen madaxweyne xasan sida uu dhaqan galiyay taladii madaxweyne farmaajo kula taliyay. sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa qadka telefoonka ku wacay madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagoo uga mahad celiyay inuu qaaday tallaabo qarannimo leh. waxa uu sheegay inuu ku garab taagan yahay arrimaha dibadda isla markaana ay Soomaaliya u baahan tahay in lagala dagaalamo caadaqaatayaasha doonaya inay qarankeena xumeeyaan. iyadoo arrimaha dibadda Soomaaliya ay si weyn sanadihii ugu dambeeyay kor ugu kacayday sida dayaxa soo iftiimay. madaxweyne farmaajo ayaa si weyn Kenya ugu bahdilay diblomaasiyadda dunida 5 sano ee la soo dhaafay iyadoo Kenya maalmihii la soo dhaafay madaxa dhulka ka soo qaadaysay iskuna dayday inay dowladda Soomaaliyeed carqaladooyin kala duwan hordhigto iyadoo maamul goboleedka Jubbaland adeegsanaysa. Kenya ayaa mar walba isku dayday inay Soomaaliya ku dhibaataydo magaca Jubbaland iyadoo adeegsanaysa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo si weyn loogu xanto inuu dabada ku hayo dowladda Kenya isla markaana uu ka amar qaato Uhuru Kenyatta. Axmed Madoobe ayaa madaxweyne farmaajo dagaal hoosaad ba'an oo faraha la isaga gubtay kula jiray sanadihii la soo dhaafay kadib markii dowladda Soomaaliya ay qaatay tallaabo Kenya looga saaray diblomaasiyadda Soomaaliya isla markaana xiriirka loogu jaray kadib markii Kenya ay duqeyday gobolka Gadood shacab oo Soomaaliyeed hantidoodana baabi'day qaarkoodna laftirkoodii ay dhinteen. isla markaana dowladda Soomaaliya ay ciidamo tiro badan dhoobtay xuduudda gobolka Gadood. arrintaas oo looga gal lahaa in Soomaaliya qarannimadeeda iyo jiritaankeeda lagu ilaaliyo. Uhuru Kenyatta oo Kenya dabada ku hay isla markaana lacago tiro badan lagu bixinay sidii madaxweyne farmaajo oo la dagaalami lahaa ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin lagu carqaladeynay nidaamkii madaxweyne farmaajo. arrimihii doorashooyinka ay si weyn u saameeyay tallaabadii uu Axmed Madoobe qaaday oo madaxweyne farmaajo kula dagaashanaa iyadoo si weyn arrintaas ay u saameeyay hanaankii horumarinta nolosha ee bulshada ku dhaqan gobolka Gadood iyo guud ahaan deegaanada maamulka Jubbaland. Kenya ayaa Axmed Madoobe waxay ku abuurtay Jubbaland waxaana uu yahay mashruuc loogu talagalay in qarannimada Soomaaliya lagu hagardaameeyo sida uu horeyba u sheegay taliya hore hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Faad Yaasin Xaaji Daahir oo dhawaan warbaahinta la hadlay soona bandhigay sababta rasmiga ah ee Axmed Madoobe uu dabada uga hayo Kenya iyo sababta Kenya ay ujeedooyinka guracan uga leedahay in qarannimada Soomaaliya ay dhulka la dhacdo. xaaladaha ku gadaaman sida Kenya ay doonayso in Soomaaliya hagardaamiyado waxa ay qayb ka yihiin
sida ay dowladda Kenya markaas isugu ilaalinayso in Axmedoobe oo mar walba Soomaaliya kusii dhex jiro iyadoo Jubbaland loo diiday in nin kale uu ka noqdo mas'uulka maamul goboleedka. sababta ay Kenya arrintaasi uga gol leedahay ayaa in mar walba ay markaasi ay ogtahay haddii Axmedoobe meesha ka baxo inaysan Soomaaliya wax saameyn ah ku yeelan doonin arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha intaba maadaama Axmedoobe uu yahay nin Kenya la shaqeeya isla markaana wax walba ay kusoo shubaan oo dhaqan gelin karo aysan heli karin in dhaqan geliya talaabooyinka ay soo qaadsiiyaan mar haddii uu meesha ka baxana Kenya jiritaankeedii iyo saameynteedii ay Soomaaliya ku leedahay meesha ka baxayo. madaxweyne xasan sheekh maxamuud tallaabada uu maanta qaaday uu ku bahdilay Uhuru Kenyatta ayaa waxay hordhac ahayd tallaabooyin waaweyn oo madaxweyne Farmaajo kula taliyay inuu qaado xasan sheekh maxamuud oo looga guuleysan karo in Kenya ay qarnimada iyo jiritaanka Soomaaliya wax dhaawac u geysato iyadoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu muuqdo in hadda markaasi indhaha kala qaaday fahmana dhibaatada iyo gartaamooyinka ay Kenya ku wada Soomaaliya. xaaladaha ku gadaaman maamulka madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudaha aad ay u kala duwan yihiin iyadoo ay bilaabatay baagsi lagu sameynayo siyaasiyiinta laakiin marka loo tago arrimaha dibadda madaxweyne Farmaajo ayaa u ballan qaaday xasan sheekh maxamuud inuu garab ku siinayo xataa haddii uu isagu gardaran yahay in markaasi loogu garbaynayo maadaama ay tahay masar ummadeed oo loo baahan yahay in aan dal shisheeye gacmaha loo gelin. madaxweyne Farmaajo sanadii uu xilka joogay si weyn ayuu ula dagaalamay in Soomaaliya ay faragelin ku yeeshaan wadamada dibadda gaar ahaan Imaaraadka Carabta iyo Kenya oo caqabad weyn ku ahaa hanaanka geedi socodka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. xasan maxamuud xilligaas wuxuu ahaa nin mucaarad oo banaanka qeylinayay wuxuuna garab taagnaa dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Kenya laakiin madaxweyne Farmaajo ayaa hadda sheegay inuu doortay in dalkiisa uu difaaco inta uu mas'uuliyiintii dalka arrimaynay kala safan lahaa wadamo shisheeye oo dano guracan Soomaaliya kale mar walba ay ujeedadu tahay in Soomaaliya khalaase iyo qaran dumis joogta laga sii abuuro. xaaladaha ku gadaaman xukunka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo si weyn looga deeranayo iyo habdhaqanka cusub ay bilaabeen ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in mar walba loo baahan in niyad wanaag la muujiyo arrintaas oo sababi karta in aysan dalkan ka dhacin waxyaabo khatar gelinaya maamulka dowladnimada Soomaaliya. wuxuu sheegay inay rajo ka leeyihiin shacabka Soomaaliyeed dalkooda oo baraare iyo bashbash iyo barwaaqo gaara isla markaana loo baahan yahay in mas'uuliyiinta mucaaradka ay ku garab istaagaan dowladda tallaabooyinka horumarineed ay qaadayso difaaca qarannimada iyo ka hortagga argagixisada laakiin arrimaha siyaasiga ee gudaha marka la yimaado khaladaadka dowladda kala dhacaya aan marnaba loo dulqaadan karin oo ay diyaar u yihiin haddii ay yihiin mucaaradka gudaha inay ka difaacaan dowladda khataraha gudaha ay ka sameynayso laakiin wadamada dibadda markii loo yimaado siyaasiga dalalka Soomaaliya iyo Kenya ay marba Soomaaliya garab taagan tahay isla markaana uu madaxweyne Farmaajo siinayo talooyin cajiib ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud si uu uga feejignaado khataraha ku soo fool leh shargareeyo xogahan qaybta faalada wadaagta aragtida inta ay kulanti dambe nabadgeliyo.